halqadan waxaan ka hadli doonaa qaabka ugu fudud ee luqadda Englishka ku baran kartid. Arday haddaad tahay ama haddaa Englishka doonaysa inaad baratid, videogan dhammayso. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaad halqadan. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc muhiim ah, waxaana waaye qaabka ugu fudud oo luqadda Englishka lagu baran karo. Qaabka ugu fudud ee ku baran kartid luqadda Englishka waxaa waaye inaad ku nooshaa waddan luqadda Englishka looga hadlo. Laakiin haddaad joogin waddan Englishka looga hadlo, waxaa jira qaab aad raaci kartid si luqadda Englishka ku baratid. Luqadda cusub markaad baranaysid waxaa jiraan waxyaalo oo ah do's, waxyaalaha laga rabo inaad samaysid, iyo waxyaalo kale oo la dhaho don'ts, waxyaalaha iska ilaalinaysid. Waxyaalana laga rabo inaan sameyno iyo waxyaabo kale oo laga rabo inaan iska ilaalino. Do'ska midka ugu horeeya oo ugu muhiimsan waxaa waaye inaad jeclaatid luqadda aad baranaysid, waayo waxaadan xiiseynayn ma baranaysid. Waxaan dareemi karnaa arday kasta maadada jecel yahay inay fudayd la tahay uusan ka caajisin. Midda labaad waa inaad bilowdid inaad luqadda baratid. Galaasaad ku biri kartaa ama online aad ku baran kartaa luqadda. Laakiin galaaska la aadayo ayaa markas ka wacan oo ka faa'iido badan midka online-ka ah. Markaad bilowdid waxbarashada, 4 skill oo muhiimka ayaad baranaysaa: speaking, listening, reading and writing. Hadalkii, dhageysigii, qoraalkii iyo akhrintii. Si aad u baratid Englishka adigoon ka caajisin, waxaad ku baranaysaa Englishka waxyaalaha jecesha. For example, haddaad filmaanta xiisaysid, filmaan English aad fiirsanee. Haddaad raadiyo jecesha inaad dhageysatid iyo warka, English aad ku dhageysane. Waxaad kala samayn kartaa markaad fakarayso inaad English ku fakarto, naftaadana inaad English kula sheekaysatid. Laakiin naftaada la sheekaysan adoo bas saaran, dadka waxay ku maleynayaan inaad waalate. There are 2 things that you need to avoid. Waxaa jiraan 2 wax oo laga rabo inaad iska ilaalisid mar walba. Number 1, don't be shy. Waxaa laga rabaa inaad markasta luqadda ku hadashid aadan ka xishoon. For example, galaas haddaa ku jirtid waxaa la baahan yahay xishoodka inaad iska ilowdid, aad markasta practice samaysid. Number 2, don't be afraid to make any mistakes. Waxaa laga rabaa inaadan ka cabsan ama inaadan ka baqin inaad qalad gashid adoo luqadda ku hadlaya. For example, waxaa ka cabsan kartaa grammar error, qalad oo grammar ah, ama speaking error adoo hadlaya pronunciation-kaagi oo ah dhawaaqa inuu kaa qaldamo ama qalad kale. Waxaa laga rabaa inaad garatid inuu yahay qaladka wax normal ah, especially markaad student tahay maadaama aad weli luqadda baranaysid. The next thing is that you can make friends with people who speak English. Midda ku xigta samayn kartid waxaa waaye inaad la saaxiibtid dad oo jecel luqadda Englishka inay ku hadlaan, ama arday ha noqdaan dad kale Englishka jecel inay ku hadlaan oo xiiseeyaan. Waxaa noqon kartaa friends with them, saaxiibkooda noqon kartaa, si aad markasta practice u samaysid. Because practice-kaaga markuu bato, level-kaaga kor u soo kacaya. Middaas wax ku soo xigo samayn kartid waxaa waaye you can change the words and sentences that you use. Waxaad bedeli kartaa kelmadaha iyo sentenceska isticmaashid. For example, haddaad qabsatay inaad markasta dhahdid how are you marka qof weydiinaysid siduu yahay. Next time kelmad kale aad isticmaali kartaa. For example, how you doing ama how is life ama qaabab kale aad isticmaali kartid. Markasta si aad samaysid Englishka wuxuu sii noqonayaa fluent. Vocabulary-ga ama kelmadaha aad soo xifdisay markasta haddaad isticmaashidna way adag tahay si aad ku ilaawi lahayd. Midda soo socota very important waxaa maskaxda inaad markasta ku haysid aadan ilaawin. Waxaa jirta oraha English ah oo markasta macallimiintu kusoo celceliyaan, taasoo ah learning isn't a product but a process. Waxaa laga wadaa waxbarashada ma aha product waxaa laga wadaa alaab oo lasoo sameeyo. Orahdaas maxaa loola jeedaa? Waxaa loola jeedaa waxbarashada inaysan ahayn product. For example, haddaan isdhaho t-shirtkiana gashanaha asoo kala samee, waxaan soo qaadaa maradii, waxaan soo qaadaa qalabkii lagu talayay, markaan hawshii galo xoogaa yar kadib hawshii waan dhameeyay oo t-shirt aan haystaa. Laakiin waxbarashada sidaas oo ka duwan tahay, waqtiga qaadataa, waxayna u baahan tahay jihdi iyo samir. Sidaa daraaddeed arday haddaad tahay hasdhihin English hal sano maa ku baran karaa, 3 bilood maa ku baran karaa. Waqti looma qabto, waxbarashadan dhammaad malaha ee markasta way socotaa. Waxaa jiraan arday badan oo buugaagtooda intay soo qaataan waxay furaan conversation-ka xifdinaan from A to Z. Middaasna looma baahna. Don't memorize a full conversation dhammaystiran uma baahnid inaad xifdisid. Waxaa u baahan tahay vocabulary-ga oo ah kelmadaha cusub inaad xifdisid, aad isticmaashid sidoo kale. So juhdiga ku bixinaysid conversation A to Z inaad xifdisid, waxaad ku baran kartaa waxyaalo kale oo ka muhiimsan. Midda taas ku xigta waxaa waaye you don't have to sound like a native speaker.
qasabku ma aha luqadda inaad uga hadashid sida qof oo American ama British ah oo luqadda u dhashay. More important waxa waaye luqadda inaad si sax ah uga hadashid, pronunciation-kaaga ama dhawaaqaaga inuu sax ahaado ay dadkana si fudud ku fahmi karaan. haddaad already arday tahay galaas dhigatid waxaa laga rabaa practice-ka galaaska kaliya inuu iskugu ekaan, laakiin practice waxaad ku samayn kartaa guriga, waxaad ku samayn kartaa marka saaxiibada u tagtid, waxaad ku samayn kartaa banaanka meel kasta. waxaan xasuusnaataa effortiga ama juhdiga macalinka bixinayo waxaa waaye 30%, 70% kale ardayga bixinaya. ugu dambeyntii English hadday ku adkaato haniyad jabin, waxbarashadana ha ka caajisin. waad ku mahadsantahay daawashada videogan daawatay. haddii xalqadan ku anfacdo waxaad saari kartaa like, channelkana waxaad siin kartaa subscribe. mahadsanidin.